السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت السودو هذا ومركلة وبرنامج كلا إيا كيستا تي في ومالين أربعة أفري طبعا كبيش مي لبدا كون شان إلى باتانكا برنامج كينا نوحان إن شاء الله تعالى كو قاعدة ديجي دونا أرماها كسو كوردي سفر كما دحوين دونالد ترامب وكو مرايو ودمادا كويالا بريقا دحي وحان إن شاء الله تعالى إيجي دونا سفر رديسة iyo waxyaabaha soo far hadeer u hirgalay iyo warka weyn oo uu ka sii daayay Saudi Arabia ku bilaabay madaxweynaha ayaa waxa uu soo gaaray wadanka Qatar caasimadiisa Doha waxaana uu kala kulmay soo dhaweyn aan nooceeda oo kale horay loogu sameyn madaxweyne soo booqanaya dalkaas waxa intaas u dheeraa in kaliya uusan u tagin in uu rabo in uu la soo kulmo madaxda uu rabay inuu balaano kalena iyo qorshooyin kale uu ka soo fushado meeshaas qorshaha koowaad oo uu ka soo fuliyay madaxweynaha oo aad iyo aad loo soo dhaweeyay gaar ahaan shirkadda Boeing ay aad u soo dhaweysay diyaaradaha samaysa waa shirkad waa balaanka ah in uu ka soo saxiixay dawladda Qatar in ay la gasho 200 bilyan oo dollar in ay uga iibsadaan 160 diyaaradood oo kuwa commercialka ah oo shacabka qaada diyaaradahan ayaa waxa Qatar ay iibsan doontaa sanadaha soo socda next few years insha Allah ta'ala waxana lacagtaas ay gaaraysaa ay ku iibsanayaan 160 diyaaradood 200 bilyan oo dollar dealkaas wuu soo xiray madaxweynaha waana soo xaqiijiyay waxa kale oo la sheegayaa in Qatar uu u tagay madaxweynaha in uu ka aqbalo hadiyad nooceeda aan hore loo arag oo ah in diyaarad aan si gooniya loo sameeyay madaxweynaha ay u siinayaan gifti ahaan ama ay hadiyad uga dhigayaan madaxweyne Donald Trump diyaaradan ayaa horay waxa ay u taalay oo aan sawirada saan u arkayba waxay u taalay Florida madaxweynahana wuu iska jeegareeyay waxaana ay rabaa inuu ku bedesho diyaaradda caanka ah madaxweynayaasha dalka Mareykanka ee kulli wada isticmaalaan Air Force One diyaaradan ayaa waxa ay keentay dhalisay dood fara badan ka keenay dadka dalka Mareykanka madaxda ka ah iyo siyaasiyiinta iyo dadka guurtida u ah dalkan ayaa waxa ay sheegeen in arrinkan la rabo in la ogaado inuu legal yahay sharci yahay in uu qaadan karo madaxweynaha gift noocaas uu aqbali karo in ethical ay tahay oo maaragtay wax wanaagsan ay tahay oo la qaadan karo iyo waxa kale oo ay ka maaragtay haynta ugu faraha badan ka keentay security concerns in diyaarad wadan shisheeye uu siiyay madaxweynaha dalka maadaama madaxweynaha dalka Mareykanka uu yahay ay keeni karto arrimo la xiriira xagga amniga madaxweynaha so legal ethical iyo security concerns ayay ka keeneen laakiin isaga waxa ka go'an oo uu ku calolfiyo yahay madaxweynaha in uu qaato hadiyada ay siinayso dalka Qatar waxa kale oo big news noqotay oo sheeko weyn noqotay la kulankii uu la kulmay madaxweyne Syrian leader hogaamiyaha Syria wiilkan la yiraahdo Ahmed al-Shara ayaa la yiraahdaa ayaa waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalka Mareykanka wadanka Saudi Arabia caasimadiisa Riyadh ayay isku kulmeen labada madaxweyne iyaga oo in isgacan galiyay si fiican u wada ismail gareynayay oo u wada dhowl cadeynayay ayay isgacan galiyeen waana cajiib bay noqotay in nin wax yar ka hor madaxiisa ay saarayd 10 milyan oo dollar geeri iyo nolol tii lagu keenaba Mareykankana uu ahaa wadankii soo rogay arrinkaas gacanta in uu galiyo madaxweynihii dalka Mareykanka cajiib ayay noqotay waana waxyaabihii uu sheegay oo uu lahaa Saudi Arabia hadaan tago waxaan arki doontaan wax cajiib ah kaga dhawaaqi doona waxa ninkaas odaga aad buu ugu farxay inuu madaxweyne Donald Trump la kulmo waxa kaloo sidoo kale aad ugu farxay in arrinkan uu hirgalo iyo cunaqabatayntii Syriana laga qaado wadamada khaliijka oo marka hore sida la sheegay ka cabsanayay in hadii ay ku sameeyaan investment ama maalgashi Syria
in ay maraykanka ka xanaajiyaan maadaama maraykanka uu ku hayay cunaqabateyn dalka Syria halkaa waxaa dhabarka kaga jabay ninka odayga ahaa Benjamin Netanyahu oo isaga sida la sheegay soo tokadii hore markii uu maraykanka imaaday ku booriyay Donald Trump in uu ku sii hayo cunaqabateynta waddanka Syria warkii weynaa oo sheegay madaxweynaha wuxuu ka sheegay waddanka Saudi Arabia asaga oo cunaqabateyntii totally ka qaaday waddanka Syria Netanyahu ayaa waxaad ogtihiin in kadib markii dowladdii Bashar al-Assad ay dhacday uu gudaha u soo galay waddanka Syria isaga oo ka qabsaday dhul dheeraada sidoo kalena dhanka hawada ka bambayn jiray dalka Syria gudihiisa meelo ku yaala oo dhiib ah waxaa kale oo la sheegayaa madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump inuu sidoo kale rabo in uu la kulmo Turkiga intuu tago in uu wada hadal ku dhaxmariyo oo uu wada hadashiyo directly si waji ka waji ah face to face in uu wada kulansiiyo madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky iyo madaxweynaha dalka Ruushka Putin labadaas ayuu rabaa inuu sida ay wararka la sheegayo oo ay xaqiijisay CNN-ta in uu ku kulansiiyo meeshan la yiraahdo Turkiga inuu ku kulansiiyo maadaama Turkiga dhexdhexaad ay tahay Turkiga inuu isugu keeno ayuu rabaa oo uu ku wada hadashiyo labada madaxweyne isagana uu ka ahaado garwadeen dhex fadhiya labadan madaxweyne kulankooda intaas ayuu rabaa insha Allah taala in uu sameeyo marka odayga waa shaqo tagay howl adag ayuu soo qabtay wax badanna wuu wadaa madaxweyne Donald Trump inta ayaan rabay inaan idinla wadaago wixii kale oo ka soo kordhay insha Allah taala don't forget to like Kista TV insha Allah subscribe to the channel and like and share insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh